walaalow xalay dhacdayaab leh meeshaan ka dhacday aniga maamulka kaamkaan ka mid ahay xalay waa nala soo weeraray guri deriskeyga ah la soo weeraray meesha waa xabad lagu dhuftay goobyaal wuxuu noqday 4 meesha ku dhimatay hadda warbixinta isbitaal Madiina say igu soo gaartay xalaa dhimatay la leeyahay 5 ay noqonayaan habeen hore mid la dilay 6 asaas ku noqonayaan الله سلام inkastoo cinaad iyo culays badan ku soo maray dib u curatay nabadii iska si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka kaga sarreeyna sabol iyo tijarana sahay waxay u haystaan dadan kala saluugine isa siyaabanahay ilama ahan damiirkooda inuu jabal aan daawana fiidiyogan ma jira xanuun iyo tiiraanye ka weyn in ilaa 6 qof oo isku qoys ah ay hal meel ku dhintaan amaba ay ku qurbaxaan ilaa 5 kalena ay ku dhaawacmaan dhacdadan ayaa xalay waxa ay ka dhacday tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho hadii meesha dadka waxa lagu sheegay xalay waqti dhacdana soo gaartay waa habeenkii labaad ayaa la joogaa muuqaalka xilliga aan duuba waa habeenkii labaad dhacda ay dhacday kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogteen ee soo bono daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halka naga daawanaysaan waa badbaado show fadlan subscribe channelka haddii aad cusub tahay like share comment inta waa laga doonayaa runtii caawa mar kale iyo muuqaal kale oo murug leh waa muuqaal tiiraayadiis wato waa muuqaal aad aan ugu murugooday waxaa dhacday duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheekh Ibraahim in qoys lagu xasuuqay qoys sida la sheegay ilaa 10 ay gaarayay meel ku hadlayay gabar sidaas qol idin ugu geerood ama laga dilay ka hadlay arrintaas si loo duglaha rasaas inta lagu furo la hogiyay hadana 4 meesha dhigay dhaawacay kana jiraan waa runtii dhacdo xanuun badan waa dhacdo wadata xanuunkeeda iyo maxallaha la yaabkeeda fiidiyadii hore haddii aad daawateen waxa uu hadlayay Soomaalida maskaxdeeda imaankeeda in ay maqan yihiin aqliyan in ay u dhimatay wax walba dareenkii dadnimo inuu naga tagay dareenkii dadnimo inuu naga tagay waa fahmi kartaa dadka saas sameynaya dadka dhacdaas geysanaya dadka waxyaabahaas ku dhaqmaayo ilama ahan damiirkooda inuu joogo bal aan daawana fiidiyogan ma jira xanuun iyo tiiraanye ka weyn in ilaa 6 qof oo isku qoys ah ay hal meel ku dhintaan amaba ay ku qurbaxaan ilaa 5 kalena ay ku dhaawacmaan dhacdadan ayaa xalay waxa ay ka dhacday tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho hadii meesha dadka waxa lagu sheegay xalay waqti dhacdana soo gaartay waa habeenkii labaad ayaa la joogaa muuqaalka xilliga aan duuba waa habeenkii labaad dhacda ay dhacday maanta ilaa iyo habeen hore waxaan ku jiray barnaamijkaas laakiin ilaa hadda xog rasmi ah kama helin laakiin xaqiiqada ay waxa ay tahay dad 10 gaara meel wada fadhiyay in rasaas la hogiyay 4 meesha ay ku nafwaysay min isbitaalka la geeyay isbitaalka ku geeriyooday 4 kale had isbitaalka Madiina Muqdisho ay ku jiraan halkaas dhaawacyada lagu dabiiba disho waxaana la sheegay inuu geystay nin ku hubaysnaa qori oo dadkuna ay qaarkood sheegayeen inuu ahaa askari ninkan ayaa waxa la sheegay in qoyska uu dhibaatada u geystay uu ka qabay reer waxaana uu xalay uu ku furay baas oo markaasi hub uu sitay sida hadda idin muuqata isla markaana uu baas u qabtay dabada dadkii oo markaasi iska fiidsanay xalay abaar 8 fiidnimo iyo qadar daqiiqada ayuu nin hubaysan rasaas huwiyay qoyskan oo daqiiqado ka hor ka arinsanayay tacsida haweeney reerka ka mid wan goobjoogayaal ku sugan kaamka ayaa ii sheegay in ninka dilka geystay uu gabar ka qabay qoyska uu laayay halka dadka qaarna ay tilmaamo kala bixinayeen Xaydar Kuusow oo ah horjoogaha kaamkan Daris Uroone oo ah halka ay mashaqadu ka dhacday ayaa Kalson TV uga warbixiyay dhacdadaasi argagax lahayd
walaalow xalay dhacdayaab leh meeshaan ka dhacday aniga maamulka kaamkaan ka mid ahay xalay waa nala soo weeraray guri deriskayga ah la soo weeraray meesha waa xabad lagu dhuftay goobyaal wuxuu noqday 4 meesha ku dhimatay hadda warbixinta isbitaal Madiina say igu soo gaartay xalaa dhimatay la leeyahay 5 ay noqonayaan habeen hore midaa la dilay 6 asaas ku noqonayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahayow nin walba xaqiisa ilaahay ha siiyo anaka dadsa ilaa hadda waa la yaabanahay ninka leeyay war kama hayno wixii meel aan ku sheegno male ilaa hadda waa la yaaban yahay dadka qaar waxay sheegayaan inuu indha shareer xirnaa oo qoyskana uu ka qabay gabar arintaas ma jirtaa wixii aan ka sheeg Allahu callam waa aniga taas ma sheegi karo dadkii la wareysan lahayna way baaba'een aan wareysan lahay laakiin wixii aan ka sheegay dambi waa aniga ma sheegi karo taas afartii ruux ee qoyskan laga dhaawacay ayaa la geeyay isbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho dhaawacyadii qoyskan ayaa la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Isaaq Cali Ibrahim waa xubin ka mid ah qoyskan dhibanaha ah waxaana kula kulmay isbitaalka Madiino isagoo ku howlan dabiibka dhaawacyadaasi walaalow dhacdadaas waxay aheeday anagoo meel iska fadhino oo gabadha sida adiga oo aan ku tashahayno oo siday aan gabadha oo saddexda aan ku duugu lahaynay anaga reerkeena aan ku tashahay tashadaadkii 2 saac bara aheeday anagoo saan u fadhino ayaa waxaan maqlanay derbi anaga saan u fadhino qol yar saas oo u fadhino gadaasheen oo derbigu saas ay tahay oo lamiyari oo saaran axabad noogu soo baxday marka anagoo qolka yar ku jirno wixii dhan adiga waxa meeshii 4 qof meesha ku dhimatay 4 qofna dhaawac ka naqatay dhacdada intaas ay ahayd markii dambe gurmuda noo imaaday ciidana imaaday ciidankii ayaana soo qaaday macal dhaawacii macal meedkii isbitaalka dhaawac 4 ku jirto 4na waa dhimatay ninka dhibka geystay wuxuu ahaa ma aqaana kaas aniga ma sheegi karo hebel ma dhihi karo kaas waxaa la sheegay in qoyskan aad ka tirsan tahay uu gabar ka qabay ma jirta arrintaas asiga ninka oo dhintay qoyskiis gabar oo ka qabay waa ka qabay taas waa ka qabay waa dhacdo naadir ah oo argagax ku beertay dadka deegaanka Daris Uroone tabeelaha Sheekh Ibrahim ee duleedka Muqdisho kuwaasoo bilaabay cabsi iyo barakac waxaana saakir la arkayay qoysas ka guuraya halkaasi maxamuud soo faysana telefishinka Kalsan Muqdisho runtii waxaa daawateen dadkii la wareysanayay oo mid ka mid ahaa ehelkii meesha joogay inkastoo uusan xaqiijin ninkaas inuu gabadha qoyska gabar ka qabay iyo in kale iyo in ninkii gabadha qaba u dhintay adiga waxba isku qasay qaybta dambe haddii aad daawateen laakiin sida aan wararka aan ku helaa oo dad kale ay ila soo warameen ama ay ii sheegeen in ninka gabadha qoyska soo weeraray oo gabar ka qabay cidda reerka sidaasna xoogaa muran oo ka jiray meesha ka hor xaaladaas inta aysan dhicin kadibna rasaas uu hogayay guud ahaan familkii saasna ay 4 ka mid ah dadkii ay ku nafwaayeen kadibna dadkii isbitaalka la geeyay 5 ahaa mid ka mid ah isbitaalka ku nafwaayeen waa gartay dhacdooyinkan waxay ka mid tahay dhacdooyinka xanuunka badan ee ka dhaca dalka waxay ka mid tahay dhacdooyinka foosh xun ee sida qaabka daran u dhaca ee ka dhaca dalka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha maalin walba ka dhaca dalkeena annagana indhaha aan ka qabsano ka sii soconno waxyaabahan waxay u baahan yihiin salbaarid waxay u baahan yihiin say ku dhaceen say ku imaaday maxaa sabab maxaa soo celceliyay intaasoo dhan laisuma dayo waxaan rajaynaa insha allahu in mar un ay wax walba ay noqon doonaan sidii fiicneed inay wax walba ay dhammaan doonaan waa waxa imtixaan adduunyada waa imtixaan kule qoyskaas murug ayaa haysato waxaa haysato wax la yaab leh waxaa haysato wax cariiri ah oo kulle annaga waxa kuma tari karno kaliya waxaan kala qayb qaadanaynaa tacsiyada iyo maxaa la waa la murugonaynaa
marka waa mahadsantihiin videoan daawashada ku mahadsantihiin waxaan rajeynaa insha allahu tawfiiqda allahna waafajiyo wax kaloo dhahmay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.